السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي qaaliga meel kasta joogtiin soo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka waa walaashin shukri aadan buule asxaabta qiimaha badan ee dhinaca hawada nagala socota soo dhawaada indhahaya kulanti kale oo wacan maanta iyo cashir kale oo cusub oo aad u muhiim ah oo Soomaalida inta badan haysta ayaa halka raba maanta inaan kusoo daayo mawduucan maanta waxaan hayaa cashirkan waxa waaye atraces waa la kasaayo oo islaamaha mamooyinka iyo hooyooyinkan ay aabayaasha ka wada buuxan dadka markay weynaadaan soo marka waxaan rabaa inaan ogaado horta atraces maxaa la dhahaa xanuunkan atraces la dhahayo muxuu ka micno yahay atraces waxa weeye waa xanuun waa cudur hadhow keena xanuun badan oo barar leh iyo waxa kale sameeyaa oo lafaha ku sameeyaa inay kala durqaan lafihii iyo meelihii lafihiis haysteen jointska that's all aha atraces asxaabta la socda soo marka hadda waxaan usii guudagelaynaa maxaa atraces keena because cudurkaas waxba keena maxaa keena weeye waxa keena asxaabta qaaliga waxyaalo badan ayaa keena laakiin inta ugu muhiimsan ayaa inta kusoo deynayaa waxyaalaha kamid oo keena atraceska waxaa kamid ah qofka haduu galo shil injury oo lafihiisa wax soo gaaraan hadii qofkaas uu qof duq noqdo ilaa 60 sano u gaaro waxyaalaha kale keena atraceska waxa weeye asxaabta infection ayaa keena immune systemkaaga maxaa la difaaca jirkaaga haduu aad iyo aad u hooseeyo wuu keenaa hadii qofka zaid u buuran yahay wuu keenaa hadii genetic or family history uu yahay family history ama genetic waxa laga wadaa qofkaas uu kamid yahay familkiisa hooyadiis ama abiis ayaydiis familka dadkii dhalay ama dadkii sii dhaleen ay qabi jireen isagana uu ku dhici karaa ama uu ku dhacaa waxyaalaha keena waxa weeye muscles weakness inuu maxaa la dhahaa muscle-ka murqaha ee jilcaan ee catoowan waxyaalaha xitaa atraces markeena waxa kamid ah qofka markuu duqoobo haduu markuu yara uu caano soo cabi jirin uu ahaa qof caanaha cabin isagana hadhow lafihiisa wixii ka dhamaanaa isku hay way kala tagayeen xanuunkaas ayaa ku soo biiraayo soo marka asxaabta qaaliga ah waxyaalo badan ayaa keena marka waxa keena atraceska halkaas aan sii guud baxayna way badan yihiin hadana meeshana ku soo deynaya hadda waxaan sii guud galeynaa asmaamayaasha lagu gartaa in atraces leeyahay because dad badan ayaa atraces leh oo iska socda oo ogeyn soo hadda waxaan sii guud galeynaa asmaamayaasha lagu garto in atraces leedahay asxaabta qaaliga lagu gartaa asxaabta qaaliga in atraces leedahay qofka wuxuu dareemaa ayaa la dhahay tiredness badan maxaa la dhahaa daal badan waxa kale oo dareemaysa marka atraces leedahay weakness of affected joints and muscles ina ka dareentid maxaa la dhahaa meelaha jointska ama meelaha iska galaan lafaha maxaa la dhahaa daal badan iyo maxaa la dhahaa xanuun badan iyo kaar badan ka dareemaysaa waxyaalaha kale lagu garto in atraces leedahay waxa ku garanaysaa meelihii oo iska galayeen lafaha isku imaadaan inaga ay sheegi doontiin waxa la dhahaa way bararayaa zaid u bararayaa waxa kale oo ku arkaysaa qofka isku arkaysaa marka atraces leedahay waxyaalo badan ayaa lagu fahmaa in atraces leedahay laakiin lugaha inay ku qaraac badan ayaa ka dareemaysaa waxa kale oo arkaysaa meelaha inta faraha way qalqaloodaan qofka markuu ku sii weynaado stage bay kala leeyihiin waxa kale oo arkaysaa xitaa lugaha meesha dhulka la dhigaayo suulka meesha lafta geeska iyadana way soo baxdaa zaid u soo baxdaa wuxuu dareemayaa qofka markii qabowga bilowdo xanuun badan kaar badan sidii malax ku jirto qeylo badan iyo qaqac badan iyo jacjac badan ka yaraayo waxyaalaha kale lagu garto qofka waxa lahay meel ma fuuli karo jaranjarooyinka iyo meelahaas kale dhibaatooyin badan ayay ku tahay qofka xitaa wuxuu ka xanuunsadaa hipska maxaa la dhahaa cajiraha way xanuunaan waxa kale oo laga xisadaa meeshan oo lafta oo kor maxaa la dhahaa meeshan ma kasaayo iyadana way xanuuntaa waxyaalo ka badan lafaha ayaa waaye atraceska ayuu qofka badana qaraaca xanuunka ugu weyn oo meeshaas waaye oo waxaana dhan ayaa dareemaysaa marka hadda waxyaalahan isku aragtid atraceska ayaa ku haya ogow asmaamayaashan dhan waa asmaamayaasha lagu garto xitaa waxa kale lagu gartaa asxaabta qaaliga qofka markuu atraces haysto cidiyaha ayaa isbedela nooc kale isku bedelayaan cidiyaha qaantay maaha cidiyaha isbedelay hadda aragtid ogow isagana
waxaa ku hayo arthritis ayaa ku hayo la socda asxaabta qaaliga ah. soo marka waxaa kaloo isbedelaya la dhahay qofka maqaarkiisa maqaarkii ayaa waxaa kasoo baxayo nabaro rashes la dhahay skinkiisa oo dhan markaas markuu ku dhaco saas haduu isku aragtid asmaamayaashan oo dhan waxaa ogaataa in arthritis ku haysto. hadda waxaan usii gudagalaynaa sidee oo natural way ah ama cuntooyinka u fiican oo arthritis-ka maxaa la dhahaa uga bixi kartid. arthritis-ka horta ma laha la dhahay daawo hal mar soo afjarta la ilaa hadda daawo lama arkin la dhahay, laakiin waxay leedahay daawooyin kalmaati ah iyo waxay leedahay lifestyle-kaaga ina exercise samaysid iyo cuntooyin oo kaa caawinayo. cuntooyin waxayna way jiraan. hadda aan usii gudagalna bal cuntooyinka waxaan inta u galin daawada asxaabta qaaliga inagoo mahadsan. cuntooyinka uxun ayaan hadda usii gudagalayna asxaabta qaaliga iska ilaalinaysid la wax kasta waxba uxun. cuntooyinka ugu horeeyo ayaan dhihi lahaa hadda arthritis qabtid iska ilaali ama ha isku badin. waxaa kamid ah sokorta badan cuntada lagu shubayo ma u fiicnaa lahay qofka arthritis qaba. cuntada kale ee ku xigta waxaa way cuntooyinka processka ah. processka waa cuntooyinka daasadaha iyo supermarket-yaasha lagu gado oo waxyaalaha ku xiran iyagana ma u fiicno qofka oo arthritis qaba. red meat-ka haddii hilibka gaduudan qofka arthritis qabo aad ugu xun yahay. aynoo Soomaalina nahay hilib gaduudan ma dayn karno 24/7 waxaa cunayna maxaa la dhahaa hilib gaduudan. hilibka cad ma hadda dadka wax yar soo bateen laakiin hadda qof ku dhada hilibka gaduudan ha cun ku dhaw waxa soo badatay baay qashinka la aad ku dhahaaya. runta ay isku sheegaynaa hilibka gaduudan ha isku cunina ku dhihi lahaa way u xun yahay qofka arthritis qabo. maamooyinka hooyooyinka Soomaalida la hadlaaya dadka lafaha arthritis qabo hilibka gaduudan iska ilaalinaan dhihi lahaa. waxaa kaloo in dhihi lahaa cuntooyinka xitaa oo greenska ah oo laakiin saliid ku badan tahay hala iska ilaaliyo. waxaa kale iska ilaalinaysiin asxaabta qaaliga ah waxaa weeye cuntooyinka ku badan tahay cusbada iska ilaaliya please. cusbada aad iyo aad ay xun tahay. cusbooyinka iyadana qofka arthritis qabo ma u fiicna isna iska ilaaliya la dhahay. cuntooyinka kale iska ilaalinaysiin asxaabta qaaliga waxaa weeye oo maxaa la dhahaa qofka arthritis-ka xun waxaa kamid oo kale la dhahay cuntooyinka oo maxaa la dhahaa white sugar-ka waan ka hadlay cuntooyinka sokorta cad hadda sonkor isticmaalsada brown-ka cun aan ku dhihi lahaa. waxaa kaloo xun nuts-ka waxaa waaye looska iyo waxyaalahaas kale qofkaas ma u fiicna. waxaa kale toonta iyo waxaan dhihi lahaa isagana ma u fiicna. cuntooyinka waxay kamid tahay oo iyadana qofka dhibaatooyinka u keena ama onyanka waxaa laga wadaa basasha iyadana ma u fiicna. beanska oo dhan qofkaas ma u fiicna iska ilaaliyaan ku dhihi lahaa. waxyaalaha kale oo iska ilaalinayo waxaa kamid ah qofka xitaa oo arthritis qabo biyaha qabowga ma u fiicna. biyaha qabow inuu gacmaha la galgalo iyo waxaas oo kale xanuunka ayay ku zaa'ideynayaan maadaama aan xanuunkan xanuun maaha oo lasoo afjari karo oo daawooyin leh. waa xanuun oo weligiis qabis laakiin waxyaalaha kalmaatiga ayaa ugu dhawaanaysaa. marka hadda waxaan usii gudagalaynaa sida khamrada ma u fiicna isagana hadda khamro cabti iska ilaaliyaan ku dhihi lahaa. hadda waxaan usii gudagalinaa daaweynta iyo cuntooyinka u fiican inigoo mahadsan asxaabta. u fiican waxyaalaha u fiican hadda uga bixi kartid waxaa kamid ah cuntooyinka u fiican green tea-ga uu u fiican yahay asxaabta qaaliga kulliis aan kasayno. green tea-ga aad ayuu u fiican yahay qofka oo arthritis qabo waxaan ku dhihi lahaa cab aan ku dhihi lahaa. cuntooyin kale u fiican waxaa kamid ah salmonka waxaa weeye waa malay caafimaadkiisa inta lagu soo koobi karo. cuntooyinka saddexaad waxaa kamid ahaa fruitska la dhaho berry-ga waa canabka buluuga ah iyo tufaaxana wuu u fiican yahay isagana waxaan dhihi lahaa cunaan ku dhihi lahaa. vegetable-ka greenska wuu u fiican yahay laakiin ku saliida leh iska ilaaliyaan dhihi lahaa. wuxuu u fiican yahay bararka badan ayuu kaa dejinaa sida kaabishka aad ayuu u fiican yahay asxaabta qaaliga ah isagana cunaan dhihi lahaa. salarka aad ayuu u fiican yahay. cuntooyinka saliida markaa ku karsanaysiin waxay nigula talinaa inaad ku karsatiin cuntada la dhaho saliida la dhaho saliid saytuunka ku darsadan ilaa ama midda kale oo iyadana maxaa la dhahaa magaceeda hadda iga luman tahay. cuntada kale u fiican waxaa waaye sanjibiisha shaaxa ku karsada iyo huruuda. waxaa kaloo u fiican cuntooyinka u fiican oo kale waxaa waaye dark chocolate-ka oo maxaa la dhahaa madow. whole greens isagana aad ugu fiican yahay waa cuntada brown-ka waaye. halkaas waxaa kale aan usii gudagalinaa asxaabta qaaliga hadda waxyaalaha kale dabiiciga hadda cuntada waaye ayaa inii kormaray ma rabo inuu fiidiyoga saas u dheeraado. waxyaalaha dabiiciga waxaa kamid ah asxaabta qaaliga. waxyaalaha kale u fiican asxaabta qaaliga waxaa weeye exercise-ka waxaa kamid ah inaad socotid long walk aad u socotid ilaa 30 daqiiqo ama hal 1 hour maalintii hal saacadood inaad socotid. waxaa kale u fiican baaskiilka inuu qofka wado. waxaa kale u fiican inuu qofka dabaal aado u dabaal barto. waxyaalahaas dhan waa waxyaalaha arthritis-ka xanuunka oo maxaa la dhahaa ka qafiifiya weeye.
waxaa kale oo fiican asxaabta qaaliga kuwan waa exercise weeye way ka qafiifinayn kaama dhameenayn halala socdo ina biyo qandaca ku dhex fadhiisatid ama ku qubaysatid sida taabka kale ku dhex seexatid iyadana xanuunkaas iyo kaarkaas ay ka yareynaysaa exercise kale waxa kale u fiican inuu qofka waxa la dhahay markuu arthritis qabo hadii xanuun habeenkaas uu kaarka ka bato waxyaalahaas ina mara soo qaadatid isagana meeshii ku gubaysid meeshas iyadana way ka xanuunkii badnaa iyo kaarkii badnaa ay ka ilaalinaysaa soo marka xanuunkan saan u dhahnay ma laha wax soo afjar laakiin caawin ayuu leeyahay halala socdo isku daya bahaladan inaa sameeysin exercise aan sameeysin cuntooyinkan aan sameeysin cuntooyinka xunna iska ilaalisiin marka asxaabta qaaliga waxaan rajeynayaa in wax ka faa'iideen bakhiilin ha noqonina dadka la sheegareeya halkaas ayaan si guud u baxayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh meel kasta